habeen wanaagsan daawadayaal soo dhowaada xuutiyiinta Yemen oo soo hadlay isla markaana si adag u soo farageliyay xiisadda bariga dhexe maxay go'aan iyagu qaateen odagii Putin ahaa warkiisu iskuma darsana waa soo hadlay isaguna arinta Iran buu isagu soo faragelinaya caawa sheekadu waa dab iyo holac wararkii ugu waaweynaa ayaan ku hayaa sidoo kale sheekada xiisaha badan aan ku hayo wixii Washington lagu saxiixay oo heshiis ah oo Israel iyo Lebanon la rabay dawladda taagta daran la rabay la isugu soo dhaweeyo dabay intay qaadeen qashqobka baa lagu riday marka Lebanon warbay samaysay warbay marka la timid wararkii ugu waaweynaa ayaan ku hayaa Hamastii iyadana sheeko cajiib aan kaaga hayaa khadka telefoonka waxay kula hadleen Iran hogaamiyaha Hamas maxay iyaguna isdaafsadeen warbaan kaaga hayaa soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal channelka subscribe saaro si share garee saaxiibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya nin la yiraahdo Elon Musk qadiyaan baa laga taagay nin sahlan maaha ninkan waa nin badan bari ugu dambeeyay waxa ninkan lagu eedeynayaa cunsuriyad nacayb ajnabi isagoo daraad tagay Mareykanka laakiin ninka ugu hantida badan adduunyada waa yaa dhahaya shalay waa tagtay kuma dhalan madaxweyne hadii uu yiraahdo madaxweynuhu soo sharaxaya dastuurka laga yaabo in dartii loo bedelo laakiin hadda Ingiriiska isaga waa saysta waa dawladda Ingiriiska Elon Musk waa la kala celinaya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Keir Starmer ayaa soo hadlay waxaana uu ka hadlay arin xasaasi oo quseeya dalkiisa iyo waliba Keir Starmer sheekada xiisaha badan waxay ka taagan tahay khilaaf labadan u dhaxeeya hogaanka iyo waliba Elon Musk oo quseeya kiiska dilka arday 18 jir oo lagu magacaabay Henry Novak Henry ayaa la dilay bishii December 2025 magaalada Southampton ayaa lagu dilay kadib markii koox midi ku hubaysan oo hogaaminay ama nin lagu magacaabo Vikram Digwa uu isagu midi ku dhuftay boolisku ayaa goobta yimid Digwa ayaa wuxuu been u sheegay booliski isagoo markaa yiri dhibana baan ahay waliba Henry aflagaada cunsuriyad buu geystay booliska ayaa markii dambe xiray Henry isagoo dhaawac qaba geerina qarka u saaran isla markaana dhalisay caro weyn iyo dood siyaasadeed gudaha Britain Elon Musk ee bartiisa rasmiga ah ee Twitter ku soo qoray ama X haddana X loo yaqaan horena Twitter loo dhihi jiray qoraal uu ku dhaliilay booliska habdhaqankooda marka mid kamid ah qoraaladiisa falcelinta ayaa wuxuu isugu yiri takoor ka dhana dadka cadaanka ninkan dad badan baa dhaliilo munaafiqnimo baa lagu dhaliilay waliba waxa lagu dhaliilay inuu isagu ka been sheegayo rabo nacayb islaamnimo iyo nacayb madow uu ku jiro isagoo taasi ka gadaya shakhsi dambi uu galay oo kaga dhigayo takoor ka dhana dadka cadaanka dadka wax xukumaya dhamaantood ama kala bar waxay ahaayeen dad cadaan dawladda wadankaasi waa ogtiin ba heerkii ka taagantay laakiin waxa lagu dhaliilayaa ninkii Elon Musk waxa uu isagu sameeyay Keir Starmer ayaa sheegay Musk inuu mar kale soo faragelinayo siyaasadda Britain wuxuu isku dayayaa buu yiri Britain ma aha buu yiri wadan sidaas ah war anagu bulsho aqli badan oo dulqaad badan baan nahay marka dhacdooyinka noocan ee faragelinta aad rabtid iyo jahawareerinta bulshada kuma suura galayso waxaad sameynaysidna wax la aqbali karo ama xitaa socon kara maaha sidaas baa lagu yiri waxa jira saaxiibayaal arin xiiso badan oo quseeya koonfurta dalka Lebanon sida qoraalkan aad arkaysaan Times of Israel baa soo dhigtay Hezbollah drone-kii maanta ay ku weerareen hogaamiyihii ciidamada waqooyiga Israel ninkii Rifo ahaa waxba ka raacay aad bay hadaleyn badan u dhalisay markaa warbaahinta Israel ayaa bilowday markii ay isweydiiso sababta la hadda loo ogaan lahayaa dhaqdhaqaaqa diyaaradahan iyo sida ay ku ogaan karto Hezbollah hogaamiyaasha Israa'iiliinta meelaha ay tagayaan waa laga yaabay hogaamiyahan maanta cidna lama xiriirin isagoo meel tagaya drone markaas gaariga markuu ka degtayba gaariga ku dhufteen waxa suurtagal ah leey inay ka warqabeen ee fariin ahaan iyagu uga rabeen isla markaana inay dilaan iyagu aysan dan ka lahayn wararka qaarna way jireen marka wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan diyaarad aan duuliye lahayn oo qarax lagu soo xiro oo nooca FPV ah in meel walba ay ku dhufanayaan General Rafi Milo waa sigta farac dilab uga baxsaday baa leey marka dadkaana warkoodu waaba ka daray markan waaba ka daray baa leey war sheekada ku saabsan Iran
war baan kaaga haya iiraaniyiintu wixii hore waxba dheeldheel bay iska ahaayeen baa leeyahay maanta waxayba gaareen heer iyagu ay toos arrinta Falastiin ay soo farageliyaan si aad arkaysaan ninkan waa nin wasiirka arrimaha dibadda dalka Iiraan ah Abbas Araqji baa la yiraahdaa khadka telefoonka ayuu kula hadlay hogaamiyaha kooxda Xamaas Khaliil al-Haya labaduba waxay ka wada hadleen baa la yiri xaaladii ugu dambeeyay gobolka ee dagaalada ka socda Khaliil wuxuu ammaanay mowqifka kooxda wada xaajoodka Iiraan ee ku aadan si degdeg in loo joojiyo dhammaan dagaalada iyo waliba jihooyinka kala duwan ee gobolka Iiraan dhawaana waxay ku soo dartay xitaa Falastiin lagu soo daro marka hore Lebanon la soo isku maysan hadda Falastiin hata waa ku soo dareen Al-Haya wuxuu leeyahay marka xaaladda hadda Falastiin ay ku jirto ayuu ugu sharaxay wuxuu yiri qatar baan ku jirnaa xaaladda iyadu maba wanaagsanaba dhibta hadda aan ku jirno war dhib fudud maba ah buu yiri wuxuu yiri xaalka iyagu waxaan u baahanahay gurmad degdega sidaas daraadeed bal wax ka marka uu leeyahay sidaad ku wadiin ku sii wada hadafku wuxuu yiri joojinta weerarada iyo soo afjaridda dhulkaasi Israa'iil ay qabsanayso sida isku ballaarinayso wasaaradda arrimaha dibadda waxay sidoo kale sheegtay tallaabooyinka loo sharaxay Iiraan inay u qaaday si loo yareeyo markaas dhibaatada hadda gaaraysa Falastiiniyiinta xiisada gobolka la dejiyo Araqji wuxuu xaqiijiyay in Tehran ay sii wadi doonto siyaasadeeda taageerada kooxaha wax iska caabinta u aragto kuwa sharci ah isla markaana iyagu ay yihiin kuwa naftoodu raba inay badbaadiyaan dalkooduna raba inay xoreystaan anagu koox cid kastoo rabta inay dagaalanto oo dalkaasi rabta inay iska qaado ariyada gumaysiga diyaar baan u nahay warkoodu waa cadiya marka warsha ka yaab leh baa jirta macaawiyadana Iiraan warkeedu waaba ka sii darayaaba hogaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Mujtaba Khamenei ayaa ka digay in la isku dayo kala qaybinta shacabka Iiraan wuxuu yiri cadawgeegu wuxuu doonayaa inuu abuuro khilaaf gudaha kadib markii uu tilmaamay inuu ku guul dareystay inuu jibiyo ama burburiyo dowladda Iiraan fariinta Khamenei wuxuu markaa laga aqriyay xuska geerida asaasii Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan Ruuxullah Khomeini ayaa waxa uu sheegay Mareykanka xulafadiisu inay joojin doonin dadaaladoodu iyo waliba kala qaybintoodu markaa laakiin falanqeymayaasha siyaasadda iyo waliba ku xiriirka caalamiga markaas waxay ku tilmaamayaan in Iiraan ay ka go'an tahay inay sidan ku sii socoto markaa waayo marka aad fiiriso mowqifkeedu siyaasadeed isma bedelayo reer Iiraan waxayna muujinayaan in si fudud isu dhiibi dooneen waqtiga Iiraan ayaa aaminsan waqtiga in dhinaceedu uu jiro halka Trump uu doonayo xal degdeg ah laakiin Iiraan waxay tiri waxaas ma jiraan nabad miyaa rabtaa wadadeeda soo mar ma diiday saan la ahaado juqraafiyan Iiraan waxay markaa ka faa'iideysan kartaa muhiimadda ay u leedahay marinbiyoodka Hormuz iyo waliba saameynta dhaqaale xiisadda Hormuz ee caalamku yeelan karto afartu waxa lagu tilmaamay inay yihiin dharbaaxooyin waaweyn oo Trump ku dhacaya haddii uu sidan ku sii socdana meel halis la gaari karta markaasi wareer Yemen warkoodii waaba ka soo dareenba hogaamiye xuutiga caawa sheekadu waa soo farageli waaba kala jarayba warka xuutiga Yemen warkii hore war soo dhaaf caawa hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa kooxda Ansaarullah dalkaasi Yemen Cabdilmalik al-Xuuti ayaa waxa uu isagu sheegay in Yemen si buuxda ugu diyaar garowday inay ka hortagto cadow kasta ama weerar kasta oo ka yimaada kuwa hadda naga horjeeda wuxuu sheegay in si buuxda u taageerayaan kooxaha wax iska caabinta markaa Lebanon Falastiin iyo waliba dhammaan jihooyinka markaa xuutigu waxay sheegeen wada shaqeyntaasi inay ka dhalatay sidii looga falcelin lahaa xaaladaha adag ee bariga dhexe ka jira wuxuu sheegay Mareykanka inuu doonayo inuu geliyo dagaal ballaaran oo Israel lagu taageerayo sida uu sheegay Mareykanka wuxuu dadaal ugu jiraa buu yiri inuu soo jiito qaar kamid ah dhinacyada gobolka si ay uga qayb qaataan dagaalka ya wadamada fariintan waxay ku socotaa wadamada khaliijka dowladdan Yamanta waqooyiga Iiraan ka dhistay maxaa loo dhisay mataqaan waxa lagu hayaa wadamada khaliijka maalinta ay soo gasho Saudi Arabia dagaalka toos ugu soo gasho Sacuudiga ku deysay waxa la garaacayaa goobaha shidaalka Aramco Bageeg way garaaceen xitaa 2018 dadkan waa la garaaci jiray diyaarad inta la iska soo qaataa lagu barbarin jiray dhagteeda Mareykan iyo la keensado markaas la garaaci jiray in Yemen faraha laga qaado maxaa sababay
waa fikireen gantaaladan bay la yimaadeen droneskan bay la yimaadeen markaas waa arkaysaaba riyaaday garaacayaan sharqiyeedka garaacayaan waxay garaacayaan magaalada Jidda waxay noqotayba in cashar laga barto marka Yamaniyiintu hadda waxay leeyihiin heegan baa ku jirnaa maalinta iyagu ay bilaabaan ay Iran toos loogu duulo wadamada khaliijku waxa leeyahay iyaguna albaabka baaba loo fadhiyaa iyagu ma baahna wax badanba aad bay isugu dhow yihiinba marka Xuutigu wuxuu tilmaamay qorshe kasta oo qatar oo dhinacyada marka ay uga qayb qaadan karaan dagaalka wuxuu yiri cawaaqib aan la mahdin iyo khasaare iyo ceeb iyo cawaaqib halisa ayaad kala kulmi kartaan cid kasta oo ku lug yeelata dagaalka noocan oo kala macnaha fariintan toos ay ugu socotaa haddii aad Mareykan iyo Israa'iil la jirtaan oo aad Iran ugu tagtaan jawaabtu waa u iman doontaan marka warkoodu waa ka hadalka Xuutigu marka waxa uu la jaan qaadayaa mowqifka ay muujiyeen hogaamiyaasha labada kacaanka oo ay tilmaamayaan iyaguna Israa'iil degdeg waa inay uga baxdaa Lubnaan warkoodu waa cad yahay marka waan arki doonaa waxa iska bedela markaasi waradogii Putin ha waa soo hadlay wuxuu leeyahay war cilaaqad aan caadi ahayn ayaa naga dhaxaysa Iran waan awoodnaa anagu inaan caawino halka marka dhibaatada ka jirta marka Iran Putin wuxuu leeyahay cilaaqad baa naga dhaxaysa ma joojinina caawimadeeda hubkan siinina kama joojinin wax kasta oo aan ku garab istaagno diyaar baan u nahay inaan ku garab istaagno sidaasi ayaa Ruushyaanku iyagu leeyihiin waxa jira saacadii ugu dambeeyay waxyaabo kale oo ka dhacay oo la xiriira waqti xaadirkan Iran lafsadooda ninkan aad arkaysaan Sergey Lavrov baa la yiraahdaa wuxuu yiri waxa dunida ka gadaysaan Iran nuclear bay leedahay hub bay haysataa wax cadayna oo ku aadan in nuclear ay leedahay ma jiraan maanta sidaas buu leeyahay marka haddaba waan arki doonaa wararkii ugu dambeeyay saad arkaysaan xisbigu waxay goordhaweyd soo bandhigeen gantaal iyo inay ku dhufteen taangi nooca Mirkava kaasoo ku sugnaa qalcadda Shaqiif ee koonfurta dalka Lubnaan waana burburinay bay leeyihiin marka taangi ayaanba dhulka dhignay bay tilmaamayaan marka weliba Israel ayaa soo dhaweysay maanta heshiis baa jiray oo la rabay markaas dhinacyada Lubnaaniyiintu inay ka qayb qaataan heshiiskan waxa ku jiray in Hezbollah hubkeeda laga qaado yaa galaya heshiiska Israa'iil iyo xukuumadda taagta daran ee fadhida magaalada Beirut xukuumaddan dhul baa laga haystaa laakiin iyagu waxay toos u heshiiyeen Israa'iil waxayna rabaan in Hezbollah ba laga maarmo waxba loo soo qorqoray xisbiga waa loo keenay waxa la yiraahday heshiiskan qaat waxay yiraahdeen waxa anagu Trump ka diidnay idinkoo taag daran oo laba cunug inta aan idin soo dirno habeen iyo maalin idinka dhigay idinka qaadan meena socda waa soo bursaday marka marka adiga aad qiimahaaga garan weydid awoodaada aad garan weydid waxay ka faa'iideysan karaan inay kooxdan qarameeyaan oo yiraahdaan waxaan uga faa'iideysanaynaa awoodayada waanu mideynaynaa marka si dalka loo badbaadiyo laakiin ma dooranna waxay dooreen Israa'iil iyo Mareykanka waxay iyagu markaa u soo jeediyeen ay qaateen natiijaduna waxay noqotay marka xisbigu inay yiraahdaan waxaas waxba kama jiraan amaba doonaynaba anagu marka sidoo kale wararkii ugu dambeeyay waxa leeyahay Israa'iil iyo Mareykanka waxay ka walwalayaan hub kiimikada in dalkaasi Suuriya uu yaalo kaasoo ilaa hadda aan la cadeynin la soo bandhigin Bashaar si kastoo isagu dhiig cab iyo wax badan loogu tilmaamayo uu ahaa haddana waxa lagu ammaanayay ugu yaraan Suuriyana uu isku hayay sidoo kale ma uu ogolaan jirin in looga duulo Lubnaan dalkiisa sababtoo ah cilaaqad wanaagsan baa kala dhaxaysa Hezbollah iyo waliba Iiraaniyiintu marka Iiraan mar walba Suuriya ahmiyadii u lahayd waxay ahayd inay ahayd marin Hezbollah ay ka hubayn jirtay marka oo hubkii u soo marsiin jirtay hadda Hezbollah waxay noqotay marka way soo marsiistaan haddaba laakiin dhaqaale iyo lacag aad ah ay ku bixiyaan qatar waaweyn way marka u bareeraan markaasi haddaba waan arki doonaa Pakistan iyo Hindiyana mar kale ayaa sheekadoodu ay soo noqonaysaa dawladda Pakistan Hindiya ayay ku tuhmaysaa inay tahay dawlad qatar ah isla markaana u adeegsanaysa hub ahaan biyaha xadgudub ayayna ku tahay ballantii iyo heshiiskii labada dawladood bay leeyihiin biyaha bay xirayaan biyo bay leexinayaan Pakistan fariin bay u diraysaa Hindiya marka Hindiya bariyahan badaandaansi bay wadaaba leeyahay
sababtaasina waxbaa gadaal waxaa ka riixaya Israel baa lagu eedeynaya aad baad mahadsantihiin daawadayaal channelka subscribe saaro si share gare meel kastoo aad joogtaan naba dino